السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومعنى iyo muuqaal kale oo aad iyo aad u xiiso badan maanta insha Allah taala waxaan rabaa halkan aan in kula wadaago sida dooqeena maalinlaha ah ama wax qabadkeena maalinlaha ah oo u saameynayo nolosheen intaanan mawduucan guud aan u guda galin bal aan kula wadaago sheeko yar oo si fiican ugu bidhaaminaysa mawduucayga muhiimadda uu leeyahay iyo halka aan u socdo waxa jirtay laba wiil oo saaxiibo ah yaraantoodii saaxiibay isku iskuul galay isku jaamacad ka qalin jabiyay wax kasta oo nolosha ku saabsan isku hadaf ayay kala haayeen markii ay jaamacad ka qalin jabiyeen oo ay magaalka kala galeen dabcan de wala kala xamaalinayaayo wala kala shaqo tagayaayo sidii maxaa markii wax loo baranayo loo wada joogahay loo wada joogayo oo qof walba hawlihiisa oo gaarka ah ayuu raacanaya ayaan kadib labadii nin wuxuu noqday nin hantiila ah ganacsi kasta oo furo ku guuleysta saaxiibadiis ay jecel yihiin nolosha uu nool yahayna ku qanacsan halka saaxiibkiisna uu noqday nin ganacsi kasta oo furo ku guul dareysta dadku aysan jeclayn xitaa asagu nolosha uu ku nool yahay aan jeclaysan sidaas oo ay tahay labadii nin waa laba nin wali saaxiibo ah oo mar kasta way wada xiriiraan oo way wada hadlaan oo xogaha ay isdhaafsadaan balse su'aasha maanta taale ee aan rabay inaan mawduucan ku bidhaamiyo ayaa wuxuu yahay waa maxay farqiga u dhaxeeya labada nin ee isku damca ahaa ama isku hadafka ahaa ee isku waxbarashada ka soo baxay ee saaxiibada ahaa ee ninna uu noqday nin guuleysta oo noocaas iyo noocaas u shaqeysta ninkan kalena uu noqday nin nolosha saas uga dhacsan haddii aan sabar dhig ku sameeyno dooqooda maalinlaha ah ama qof walbaaba markuu damco inuu wax qabto sidoo u qaban jiray si mawduucan u noqdo mawduuc laga wada faa'iideysto oo cid walbaaba ujeedada aan leeyahay ay si sahlan u ogaato markii labadoodu ay cunto u baahdaan oo qof walbaaba uu yiraahdo wax cuntid mid waxa uu cunaa cuntooyinka nafaqada leh halka kan kalena uu cuno chocolateska iyo waxyaabaha la midka ah markii ay u baahdaan oo ay rabaan in ay shaqada ka nastaan mid waxa uu sameeyaa waxa uu dheelaa game ayuu dheelaa halka kan kalena uu buug akhriyo markii ay chance haystaan oo ay rabaan in ay maxaa la yiraahdaa noloshooda wax ku kordhiyaan mid waxa uu sameeyaa dadka businesska ama ganacsiga khabiirada ku ah ayuu raadiyaa waa la kulmaa seminaaras ayuu ka qayb galaa halka kan kalena oo TV-yada ku nasto oo TV-yada u daawado marka video games aad deeshid oo gameska aad ciyaartid maanta kala ciyaartid sanad kadib miraha aad guranaysid intee ay la ekaan karaan dhanka kale se markaad buug akhrisid yoomiye aad 10 daqiiqo ka akhrisid laba buug aad akhrisid sanad ka bacdi miraha aad guran kartid maxay noqon karaan markaad seminaarada si joogto ah uga qayb gashid dadka kulliyada ama waxa aad daneynaysid expertiga ku aad la kulantid aad ku bixisid sanad kadib ama 2 sano kadib waxa ku soo baxaya maxay noqon karaan markaas dhalada daawatid aad waqti badan dhalada ku bixisid maalin daawatid isbuuc daawatid bil daawatid sanad ka bacdi natiijada ay helaysid maxay noqon karaan haddaba mawduucaygu maanta wuxuu ku saabsanaa inaanu dooqeena hagaajino inaan dooqa aan haysano aanu si fiican uga fakarno intaana tilaabo qaadin inta aanan waqtigeena dhumin inaan si fiican u fakarno labadaas nin laba nin oo saaxiiba oo isku dooq ah oo isku nolosha hadaf kale ay ahaayeen laakiin waxa kala hormariyay waa ficilada ay sameynayaan sida maalinlaha ah marka ku soo dhawaada YouTube-ka aad ba u mahadsantihiin waxaan rajaynayaa Ilaahay ma inaad muuqaalkan wax badan ka faa'iideen like noo saara subscribe na dadaan ugu cusubtahay aad ba u mahadsantahay